waa 6 bisha sagaalaad sanada 2022 waxaana ay cumar guux waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida qodobada aan idin heynana waxaa kamid ah hay'adda duulista hawada xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in diyaaradaha ajaanibta ay ka yaraadeen dalka yaa awood u leh xilka qaadista agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka madaxweynaha Misa Ra'iisul Wasaaraha warbixin ayaan idin kaga heynaa hay'adda qaxootiga adduunka madax ka socotayna waxay la kulmeen madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland shirka sanadlaha ah ee maamulka Jubbaland oo laga daafuray Kismaayo qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kuga heynaa way ku jiraan wararkii caalamka anigoo guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya ku soo dhawaada iyaga oo intaasi ka faahfaahsan marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan aynu ku bilaabno wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in diyaaradaha shisheeye ay dalka ku yaraadeen isla markaana ay soo kordhayaan kuwa ay soo iibsanayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka kuwaasi oo qaada xamuulada noocyadooda kala duwan agaasimaha ama maariyaha guud ee hay'adda duulista iyo sidoo kale wasiirka wasaaraddaasi ayaa si wadajir warbaahinta ula hadlay iyagoona sheegay inay muhiim tahay ku tartamida diyaaradaha si dalka uu helo dhaqaale intan ka sareeya waayadii hore waxaan ugu soo badan jiray shirkado ay leeyihiin ama diyaarado ay leeyihiin ajnabi laakiin kadib markii ay wasaaradda iyo hay'adda duulistu dhameystireen shuruucdii aviationka oo aan awoodnay inaan taarga bixino oo aan awoodnay inaan laysan bixino waxaa bilowday inay ganacsatada Soomaaliyeed ku dhiiradaan inay iyagu diyaarado soo iibsadaan marka korarka aan hadda arkaynaa shirkadii ajaanibtuna way sii yaraanayaan shirkadaha Soomaalidu ay mulkiyad u leeyihiin way soo kordhayaan runaantii waa arrin wanaagsan oo inuu bato tartanka diyaaradaha ama tartanka sektaradu meelaha lagu tartamo ganacsiga waa aad u muhiim ah runtii ganacsatada Soomaaliyeed oo hirgelisayna waan ugu hambalyeynayna waan u mahad celinaynaa waxay ku tusaysaa hadba hor wadanku burburku soo maray sida looga soo kabanayo inay badanayaan oo horumarku maalinba maalinta ka dambaysa uu sii siyaadayo warqado iska soo horjeeda ayaa ka soo kala baxay hay'adda nabad sugidda iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo haddaba yaa awood u leh xilka qaadista agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo maalmihii ugu dambeeyay ama saacadihii ugu dambeeyay si weyn loogu hadalhayay baraha bulshada warbixintan ayaan idin kaga diyaariyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxa uu faray in uu sii wato shaqadiisa kadib markii uu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa fasaxada shaqada agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka waxa uu u cuskaday qodobo dastuuri ah hadalkan ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri markuu arkay warqadda sumadeedu tahay XRAW/314/9/2011 ee uu soo saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo ku saabsan shaqo ka joojinta taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo magacaabista taliye ku meel gaar ah markuu arkay qodobka 87 iyo 9aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee qeexaya in uu madaxweynaha jamhuuriyaddu uu yahay ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi'da asaasiga ah ee dastuurka uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markuu arkay qodobada 97 iyo sidoo kale 100 ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hagaya awoodaha laanta fulinta iyo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xilka qaadista taliyayaasha ciidamada qalabka sida taas oo ku eg talo soo jeedin iyo fulinta howlaha horumarinta siyaasadda dhaqaalaha iyo maamulka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo dareensan muhiimadda ay amniga dalka u leedahay hay'adda nabad sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortagga khataraha argagixisadu ay ku hayaan Soomaaliya iyo saaxiibada caalamkaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ilaalinaya mas'uuliyadda ka saaran joojinta talaabo kasta oo dhiirigelin u noqon karta kooxaha argagixisada wiiqayana sumcadaha iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga wuxuu soo saaray qodobadan go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble in uu yahay mid balmarsan xeerarka
oo aan waafaqsaneyn dastuurka dalka. 2 waxaa la farayaa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir in uu sii wado hogaaminta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareegtadii madaxweynuhu uu ku magacaabay. 3 hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa la farayaa inay horkeento golaha amniga qaranka warbixinta laga sugayay marka la muddeeyo kulanka uu ugu horeeya ee golaha amniga qaranka. 4 ugu dambeyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu farayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha xukuumadda inay si hufan u gutaan mas'uuliyadda ka saaran dhamaystirka howlaha doorashooyinka ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay Villa Soomaaliya. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxda hay'adda UNHCR ee arrimaha Soomaaliya gaar ahaan waxa uu kala hadlay sidii qaxootiga ka soo laabanaya xeryaha qaxootiga ee wadankaasi Kenya ee Jubbaland dib ugu soo laabanayo ay u heli lahaayeen guryo iyo sidoo kale cunooyin ay iyagu markaasi ku meel gaaraan. shirka kadib waxa warbaahinta la hadlay agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka Jubbaland oo faahfaahiyay waxyaabihii diiradda lagu saaray kulankan inta uu socday. waana la isku afgartay wax walbaba in la wada shaqeeyo iyo in lacag dheeraad la raadiyo oo qaasatan dadka nolosha laga hagaajiyo si aysan dhadhaab ugu laabanin mar kale. waxaa dhacday dadka qaar inay dhadhaab ka yimaadaan oo markay nolosha Soomaaliya la qabsan waayaan, waxbarasho fiican waayaan, caafimaad fiican waayaan, biyo fiican waayaan, hoy fiican ay waayaan inay ku laabtaan dhadhaab dhacday. taasa marka iyada oo laga duulaya la isku afgartay in wax laga bedelo noloshooda. xafiis cusub oo ay ku shaqeynayaan taliska booliiska ee magaalada Dhuusamareeb ayaa laga daafuray isla saldhigga gudaha ee magaaladaasi Dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. munaasabadda xarig jarkan waxaa qayb ka ahaa mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi oo ay ku jiraan xildhibaano, wasiiro iyo ururada bulshada rayidka ah oo maamulka gobolka ama maamulka degmada Dhuusamareeb uu heliyo. intaas kadib taliyaha saldhigga degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedkaasi Galmudug ayaa shacabka u sharaxay waxyaabaha xafiiska uu qaban doono isagoona sheegay inay muhiim tahay ka shaqeynta amniga iyadoona maamulka uu kula dardaarmay inay ka garab siiyaan dhismaha xafiisyada kala duwan ee laga dhisayo gudaha caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. waxaan kugu wacay maanta xafiiskii caasimadda muddadii 3 bilood iyo wax yar ka joogay la daala dhacayay sida oo u noqon lahaay meel mustaqbal saldhiggii caasimadda la ah inuu yeesho la daala dhacayay maanta inaad dhammaan mas'uuliyiinta qaybaha kala duwan ka soo qayb galaan xarig jaraan waxyaalaha dhiman oo ugu horeeyda xabsigeena ay sidii looga midoobi lahaay wax looga qabla horumarkaisa magaalada horumarkeeda koow hadaan saldhigu jirin waxaad moodaa inaysan sidii la rabo noqonayn. Somaliland markan haddii aynu eegnana waxaa lagu soo xiray tababar in muddaha u socday ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee loo yaqaano traafikada iyadoona tababarkan xubnihii qaatay iyo qaar ka tirsan mas'uuliyiinta ciidamada booliiska iyo kuwa kale oo qayb ka ahaa xiritaanka tababarkan ay si wadajir u sheegeen in ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka ay yihiin kuwa mar walba u taagan sidii ay u xakameyn lahaayeen shilalka gawaarida ku socdaalaya wadooyinka waaweyn ee Somaliland. waxay qaateen xeerka nabadgelyada wadooyinka, calaamadaha wadooyinka oo kala duwan oo 4 nooca, xeerka ciqaabta guud iyo habka cabiraadda shilalka, gargaarka degdega, badqabka gaadiidka iyo xakamaynta xawaaraha, diiwaangelinta ama sistamka diiwaangelinta gaadiidka iyo hubinta bugaagta baabuurta. caalamka markan haddii aynu eegnana Afghanistan weli waxaa ka jira xaalad kale oo ka duwan kuwii hore waxaana Afghanistan ciidamada ku sugan oo waliba madaxtooyada qabsaday ee ururka Taliban ay sheegeen in meelo kale oo hor leh wadankaasi ay ka qabsadeen si ay gabi ahaanba ula wareegaan maamulka wadankaasi Afghanistan. ciidamadii Mareykanka iyo kuwa shisheeye halkaasi joogay ayaa iyagana ka sii qulqulaya si ay amniga ugu wareejiyaan maleeshiyaadka hadda qabsaday oo aysan taageersaneen qaramada midoobay. dhinaca kalena dalka Guinea waxaa qabsaday ciidamo military ah kuwaasi oo gabi ahaanba afgambiyay madaxweynihii wadankaasi oo isagu markaasi in muddo ah soo hayay. ciidamadan militariga ah ayaa iyagu waxay afgambigan ku qabsadeen gabi ahaanba madaxtooyada iyo sidoo kale guud ahaanba dalka iyagoona hadda gacanta ugu jira maamulka dalkaasi. wararkii ciyaaraha haddii aynu eegnana saaxiibayaal isreebreebka koobka adduunka ayaa weli ka soconaya qaaradaha Afrika iyo sidoo kale Aasiya. Afrika
wadamadii ciyaaray oo Kenya iyo sidoo kale Rwanda bareejo ay wada galeen kuwa qaarkoodna waa iska kala badiyeen hase yeeshee haddana waxa ciyaari doona wadamo kale oo dhowr ah oo Djibouti oo hore looga soo badiyay ay ku jirto sidaas oo kale Aasiya markan haddii aynu eegnana Argentina iyo Brazil ayaa iyagana ciyaartoodu waxay noqotay mid hagad gashay oo gabi ahaanba la istaajiyay kadib markii afar ciyaartooy oo ka tirsan Argentina la sheegay in si sharci darro ah ay ku galeen gudaha wadankaasi Brazil ciyaartiina iyadoo oo socota wasaaradda caafimaadka ee wadankaasi Brazil mas'uuliyiin ka socday ay yimaadeen taasi oo qasabtay in afar ciyaaryahan oo kamid ah ciyaaryahanada markaasi Argentineska gabi ahaanba ciyaarta laga saaray oo sidaas lagu joojiyay xilliga la ciyaarayo iyo waqtiyada kale ee la isugu soo laabanayo ilaa iyo hadda lama shaacin hase yeeshee xiriirka UEFA ayaa xaqiijiyay ciyaartaas la hakiyay oo gabi ahaanba dib loo dhigay ودانا انت سين جعلنا كوهكي ورك الدنيا ذا نقول كوها صوص على كنا ذكلا سعود سيني كاميرا ذا الراجع حسن عمر يا كقابين انت نقول كل من دونه وركن كيسة حجنا سحب بيال اسم الله